وعن wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada qaybtii labaad ee barnaamijka doorka qoraaga iyo halabuurka Soomaaliyeed ku leeyahay wacyigelinta bulshada. أسود ولا مرة بعض داود يا الغيب طلبات برنامج كدور كقراجة يهلبور كصوماليات وعيجرينته بالشدة وطبعا نقصه قادنا قراجة بوجا عرويدك حسن محمود ديلوتو أي قراجو كهذا يا غيبو أما عتبي كله أو كم ده بوجي سعرويدك أو كهذا يا سميسن كتوجا يبارها يولبا سامين تكوي شان ديجانك سنها لو جوجي غيبو كميدا حيبها سوماليا أي يجونا كميدا عتبيدا بوجا كان غيبي سكال جدسن كلونك يوبلها سوماليا مجالوين كدعاء حيبها سوماليدا غار كميدا يولبا غيبتا وجودن بيسا برنامج كان غيبتي سالباد وقراجو كجهاد يو حبكها يدرت لو يقانو جد حبكوت كا وميديجا يبيدو بأي كميديهين ودرك سوماليدنا وعن كويه هذا بوجا عريدك وقري حسن محمود ديلود أي أنتي سبضا وحاو ديرد سارية ديجان كدولك الصوماليدا يولبا قروح ضام بلعدا يخيرات كربكم من يستي ديجان كينا يولبا وحيابها حالشتا كوا أما كيني كرا إن ديجانكو ومركاسي كيمادو حالف نباتجور غير طلبات برنامج كينا دورك قراجة يهلبورك الصوماليات وعيجينته بالشدة أي سؤال شو رئيسة أن ويدي حسن محمود ديلود قراجة بوجا عريدك أي حيد بلينو مركزي فاهين كبحيو غيبها أو كجهليو سميسن كتوجا يبارها وحنا كل شوابي. برنامج كنا واحد بس على برنامج هراء المسامين بانو قرنايا سيدنا هراء صوح الصي لح شابتر بوجو كقابنا شابتر كان وحلا هذا deegaan guud waxyaabo badan baa soo hoos gala kamid yihiin tugaga boholaha buuraha biyaha badaha kalluunka waxyaabaha soo hoos gala oo uu ka kooban yahay marka ciwaanadiisa ugu horeeya kamid ah baa wax la yiraahdaa tugaga iyo boholaha tugagu sidaad la socoto waxay kaga jiraan qayb weyn dhulka oo markoodii hore tugag ma jirin dib bay ka samaysmayaan bardo waxa weeye sidaan garan karno buuraha iyo dhulka biyo shub kale way ka soo bilowmaan biyaha xoogooda baa sameeya sanad bana waa sii kordhaan ciiduna deeyada laftigeeda noocyo ka ah marka sidoodaba dhulka kan tugagu ka bilowmayaan waa dhul jilicsanaa biyo badan oo rogmaya oo ka yimid taagaga sare iyo buuruhu ayaa keenay inay jeexmaan sababo kalena aad ugu waajiraan oo xaq hore oo chapterkii hore dhirta markaan ka hadlaynay dhibaatooyinka dhirta gaadhay waxa kamid ah xagaafyada iyo wadooyinka la sameeyo oo aan maartay si cilmi ku fadhida oo maartay salka ku haysa environmentally marka project la sameeyo mashruuc marka la sameeyo waa in loo eega environmentka bil misaal hadii la sameeyo wado laami ah waa in ay ka horeysaa wadadaas maxay muddo keeni kartaa sida la socoto wadada waa la taagayaa biyaha jaraya waa laga ilaalinaya waxa laga yaabaa marka inay dhul biyo tagi jireen laamigaasi marka la dhigo ay keento inaan biyo gaarin marka toogayo boholuhu sida weeye bohol fara badan baa wadankeena ku yaala toogag dhaadheer oo boqolaal kiiloomitir samaysma baa jira dhul bohola ah oo mitiraad hoos u qodmay baa jira marka saas uu kaga hadlayaa oo gabay baa jiray Allahu naxariistay uu tiriyay ninkii loo oran jiray cali cilmi afyare oo uu leeyahay baaqaygu waa inaad baraadhaane bariyo kuma daweysiyo nin kale inuu ku baantaayo boodhaadiga suuqa iyo beentu raad male calaashaan maxal shaahidka gabaygaasi waxa weeye badaha ku dhac biyaha ku dhaca badaha iyo biyaha ku dhaca wabiga iyo badaha coonkooda hadii dhuuma lagu soo baxsho wabiga loo jeexo macnaha waynu beeran kari lahayn biyaha tugagaasi iska sidaan يعني marka abugu waxa uu yani dadka uu tusaaleynaya oo uu tilmaamaya in togagan iyo biyaha kan iska soconaya ay bulshada ka faa'iideysan karto of course how in dhulkii la yeesho dooxadan inuu joogno dooxay ahaan jirtay
maantana tog bay isu bedeshay in la xidho oo biyaha meesha ay jabsanayaan la waxeeyo la keergareeyo oo sida jirkaaga aad u ilaaliso oo sixada ugu dadaasho inaad dhulkaad ku nooshahayna caafimaadkiisa weeyi inaad ilaaliso inaad dhaqaalayso hadii kale laguma noolaan karo dhulkii laakiin xasan in la xidho in la hagaajiyo in laga shaqeeyo inta ba sheegtay waa ay cid uu buug la hadlayo oo hawsha tan gali kartaa ma bulshada ma cid kale banaanka imaanaysa iyad ku yani kala loo leeyahay hagaajiyo dhulka waxa hagaajinaya dhulka cidii ku nool dadka Soomaaliyeed baa la rabaa inay dhulkooda buuga xaqiisa dambe gabagabo wax la yaada buu leeyahay gabagabadaas waxay ka hadlaysaa quruun kasta oo caalamka ku nool ilaahay dhul buu siiyay qolana dhulkeedii waa kharibtay qolana dhulkeedii waa hagaajisay marka inaga Soomaalida laynaga rabaa inaynu dhulka eeg degmadan hadda aynu joogno dadka ku nool iyaga Soomaalida uga wakiila waa inay iyagu hagaajiyaan waa inay barnaamijkooda ku darsadaan waa inay salaad maxaa la yiraahdaa jimcahooda khudbadiisa ku darsadaan waa inay isku waaniyaan waa in ka deeqda wax bixinaya dhulka huraa eeg waxyaabaha ugu fiican oo aan leeyahay Soomaalidu ha bixiso ha barato waxa kamid ah in dhulka la maal geliyo haddaad maanta boqol xidho ka aamunuun ajirkeedu waa ku soconay haddaad maxaa la yiraahdaa meel biyo kharibayeen oo goynayeen aad hagaajiso waa sadaqa tujaariya haddaad jidka si fiican u waxayso waa sadaqa tujaari marka dhulkeena aan u soo jeesano waa ku noolahay hagaag waxa jira cutub kale oo kamid ah buug dhabahantii wuxuu ahaa yani buug aad u balaaran waxa iga muuqatay cutub aad ciwaan uga dhigtay sunaha loo soo dhoofiyo dalkeena lagu aaso bad iyo mataqaana bergaba waxaad moodaa inay tahay arrin aad u xiiso badan Soomaaliduna sanadihii burburka 20 sano ugu dambeeyay aad loo hadalhayay hase yeeshee aysan jirin cid dambe oo sii wada maxuu buu kale yarintaas wuxuu kale yahay nin professor ah oo wax ka qoray baan ka soo qaatay sida buugga gudihiisa ku jirta ninkaas Talyaanigu wax ku bartaa buugga magaciisa xusayo oo lagu sheegaya aad buu u qaadaa dhigay waqtiga la qoray anigu jaraa'id baan ka akhriyay laakiin waxaan goostay inaan buugga ku daro waa wax research u baahan waa wax la wada ogayo Soomaalidu og tahay sida la socoto channelka la yiraahdo Al Jazeera uu sii daayay sida la socoto wariyayaasha Talyaaniga ah Rai telefishinka la yiraahdo ka socday la laayay way daba socdeen waa arrin caan ah in wadankeena sun loo soo dhoofshay waa arrin caan ah in wadamada Afrika oo dhan sun loo soo dhoofsho waa arrin aan Soomaalidu waxba kala socon marka qawaaniinta xidhaysa iyo heshiisyada caalamku ka galay ayaa buugga ku qoran ninka professorka ah ayaana maartay xigashada badideeda aan ka soo xiganaya iyo nin kale oo Dr. Siglotti la yiraahdo oo isagu soo xigtay oo baarlamaanka Talyaaniga ku jira haddii aad ka hadashayba oo sheegtay inay dhibaatadaasi sunta dhulka lagu aasayo badiya berriba jirtay 20 sano ugu dambeeyay burburka lagu jiray maxaa xalaha oo buug kaga hadlaya sidee looga hortagi karaa maxaa mataqaana sunta tan la aasay qaabkee ayaa yani loo baari karaa ama dhulka looga soo saari karaa kale waa sida uu sheegayo sida buugga ku xusan ama ay tahayba waa arrin weyn oo dawladdu u baarintan wax ka qaban kara waa arrin laakiin waxa la rabaa dadku inay ogaadaan ogaanshuhu waa wax qiimo leh qofku inuu og yahay meesha mudarradu ka dhacday ama dhulkiisa laga kharibay dad badan oo Soomaaliyeed baa waxaan ka qayb qaatay oo kharibaadan ka qayb qaatay marka wuxuu buuggu leeyahay ogaansho in la ogaado oo lagu baraarugsanaado importana laakiin waa arrin u baahan dawlad waa arrin u baahan dadkii waxa sameeyeen la daba galo waa arrin u baahan in qaynuunka caalamiga ah ee arrinta tan loo jaangooyay lagu xisaabtamo oo laga daba tago waa tahay kalluunka iyo badaha ayaa ciwaan weyn oo buugga ku qornaa isaguna kamid ahaa dabcan waxaad moodaa Soomaaliya in kastoo ilaa xeebta ugu dheer Afrika misana inaysan ciidiba aysan ka faa'iideysan marka cutubka kan maxaad khusuus kaga hadlaysaa ma kalluunka ayaad dhiiri gelinaysaa iyo in Soomaalida oo taqaanaa indhahooda ku soo jeediyaan mise waxaad sheegaysaa juqraafi kale ahaan noocyada kalluunka ee dalkeena ama badaheena ku jira waxa weeye wadankan inuu kalluun badan leeyahay baa buuggu sheegaya aan sheegaya waxaa jirta barnaamij ka bixi jiray telefishinka la yiraahdo MBC1 ayaa jiray oo la yiraahdo mansayar bax milyan su'aal baa habeen laga weydiiyay waxa kamid ahayd marka 4 su'aalood buu soo dhiga adigu duruqyo badan baa la soo maraayay waxa kamid ah in su'aalaha qaar laga jaro laba laga jaro laga qariyo laba la soo reebo inaad qof kale musaacide wax weydiiso marka wax la weydiiyay wadanka adduunka ugu qanisanay Mareykan ba ma Japan ba ma Jarmal ba mise waa Soomaaliya qofkii markaa wuxuu yiri Soomaaliya iyadu waa faqri laba kuwii kale u doortay una ku dhacay waxayna noqotay wadanka dunida ugu qanisanay Soomaaliya maxaa yeelay waxayna ugu filan xoolaheena kaliya
waxaan ugu filan badeena kaliya waxaan ugu filan macdanteena kaliya marka in badan oo kalluun badan aan ugu aqoon oo kalluumaysato ahayn isna kalluunku faa'iidadu leeyahay iyo qaybta uu kaga jiro wadankeena iyo xusaarkeena baa ku jirta waxa ku jira magaalooyinka xeebta dhaca Soomaaliya magacyadooda ku qoran buugga inaanay lahayn isu tagi karin oo labada magaalo oo isxiga xagga badda aanay isaga tagi karin ayna ahayd in la maal gashado oo maraakiib isku xidhab maxaa la yiraahdaa magaalooyinkaas ay jirto inay jirto beachaj lagu dalxiiso inay jirto hoteelo inay jirto dhul maartay vacationka lagu qaato waxaasaynu leenahay waana ka qaawanahay waa ka dharlaanahay marka waxaan ku soo jeedinaya xeebta iyo magaalooyinka xeebta ah ee taariikhda gundheer waliba leh in Soomaalidu ogaato inay gaadiidkii badda isku xidhi lahaa magaalooyinkaas iyo maalgashiga ay qaabilayaan intay magaalooyin dad kale leeyahay xoolahooda ku dhisayaan waxa u fiican inay dalkooda dhisaan hagaag mar haddaad xustayba oo magaalada soo qaaday magaalooyinka xeebta ku yaala way badan yihiin waxa weeye xeebaha badda cas ayaan wax ku leenahay badweynta Hindiyana waxbaan ku leenahay marka ma xustay magaalooyinkaas oo magacyadooda qaarkood miyaad soo sheegtay waxa laga yaabaa dadka Soomaalida inay jiraan magaalooyin badan oo xeebaha ku yaala oo aysan magacyadooda ay qariib ku noqonayaan ama aysan haynba waa xusay waana ku qoran yihiin magacyadooda ceelaayo laas qoray mayd xiis shalcaw karin berbera lughaya saylac low yacado maga intaasi waa inta magaalada Boosaaso xagga galbeed ka marta oo badda cas waaya xagga Boosaaso waxa ka xiga Qandala Dhurbo Murcanyo Geesale Calawla marka la gaadha marka Indian Ocean la bilaabaya waxaana kamida Bareeda Raas Casayr Tooxin Baargaal Xanda Hurdiya Raas Xaafuun Benderbeyle Ayl Garacad Lidaan Hobyo Cadale Warsheekh Muqdisho Jaziira Marka Baraawe Goobweyn Kismaayo Jasiiradda Kayunga Jasiiradda Chaaway Jasiiradda Juula Buurgaabo Raas Kaynboodi iyo kuwa kale aan xusino garan hagaag waa tahay xasan waxa isagana soo qaadatay oo ahayd binaan horaba kaga soo xusno buugga oo raaco dhirta xabkaha iyo dhirta geed xanjoodka loo yaqaano ayaad isaga la fahamtooda ciwaan aad uga soo qaadatay buuggaaga qaabkee ayaad u sharaxaysaa dhirta tan aad u sheegtay inay yihiin dhirta xabkaha leh ama geed xanjoodka loo yaqaano waad ogtahay xabagta maydiga iyo noocyadooda aad bay wadankeenu caan ugu yahay waxaase uu chapterkaasi ku bilaabanaya gabay yar tudco gabay ah oo Allahu naxariistee gabayagi weynaa ee Soomaaliyeed ee la oran jiray uu tiriyay Doodan wuxuu yiri xirfad iyo garaadkii isbiday ee xornimo gaaray xeebaha dalkiisa ma baran geed xanjaalaha xukunna maal la ii dhiibo buu xuquuqda la hayaaye xigmadaha asaageen watay xoog lagu yeesho rag allow maxaa inaga xayiray waxujiyayaab dalkaaga inaad barato marka wax badan buu wuxuu ka sheekaynayaa noocyada xabkahaas yihiin oo waxaan kaaga sheegi karaa mujawal faskabiir fasaqiir beeyo oo u kala baxday iyaduna shooto foox maxaa la yiraahdaa xaad murre mushaad farax didinka oo geed cajiib ah oo malmal xabkahaas oo xabagta cadaada xabagta quraca xabko baynu leenahay dawaa oo wax kale ah oo qiimo بسم الله لوعن وحلا بحي عينتنا وضالي علمي لو فرق عليه وعلا باروت عينتنا وضالي بيدي هذا موعن انبار اللقون لقادنا بريالاي بلد كيني بوهون كتبيا وساتي كالايوي كايو محيبيني وبعلي وحبيتك كاياي ومعسي وحبيتك حياي بربرتي لمانتاي وبعلي دغان كينا باباي
baylahaaya baryaarahay taanayoo barqabane nabaday daawadayaal guud ahaanna qaybtii labaad ee barnaamijka doorka qoraaga iyo halabuurka Soomaaliyeed oo dabcan aynu ku soo qaadanay buugga Carreedeg ee uu qoray Xasan Maxamuud Dhilood ayaanu intaasi ku soo gabagabaynaynaa tan intaanu isugu soo noqon doono qaybta saddexaad ee barnaamijka dhawaan waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo assalaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh